maanta waxaynu ku bilaabaynaa dagaalka Ukraine wadahadalada lagu doonayo in lagu joojiyo oo goordhaweyta ka bilowday magaalada Istanbul ee caasimadda magaalada Istanbul ee waddanka Turkiga. Haddaba wararkii ugu dambeeyay wakaaladda wararka ee Anadolu ayaa ku soo waramaysa in shir saddex geesood ah oo u dhaxeeya wafdiyada Turkiga, Mareykanka iyo Ruushku inay ka dhaceen saakay magaalada Istanbul. kadibna waxaa dhacay kulan kale oo dhex maray Mareykanka iyo Turkiga waxaana la yeesheen kulankaasi Ukraine. ergada Ruushka waxaa hogaaminaya Vladimir Medinski oo ah la taliyaha madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin, halka Ukraine uu matalayo wasiirka gaashaandhigga Rustam Umerov. waxaana goobjoog ka ahaa kulamadaasi saraakiil Mareykan ah oo hormuud u yahay xogayaha muuraha dibadda dalka Mareykanka Marco Rubio. ergada Ruushka ayaa waxaa lagu soo waramayaa in ay qayb ka yihiin ergo lagu tilmaamay inay yihiin kuwa heerkooda uu hooseeyo sida laga soo xigtay mas'uuliyiinta Ukraine. wadahadalada ayaa waxaa diiradda lagu saarayaa sidii loo gaari lahaa xabajoojin muddo 30 maalmood soconaysa, iyadoo kulamada la qabanayana ay dhacayaan xilli uu ka maqan yahay madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin kadib markii la sheegay in dartiis loo baajiyay wadahadalada dhici lahaa maalinimadii shalay Khamiista. kulanka u dhaxeeya Ukraine, Turkiga iyo Mareykanka ayaa la qabtay subaxnimadii hore ee maanta oo Jimcaha, waxaana la sheegayaa in goordhaweyto markii ugu horeysay wadahadaladan si foolka fool ah ay isku arkeen wafuudda ka socota Ukraine iyo Ruushka. kulanka waxaa gudoominayay wasiirka arrimaha dibadda dalka Turkiga Hakan Fidan, waxaana ka qayb galay dhigiisa Mareykanka Marco Rubio, safiirka Mareykanka ee Ankara Tom Bragg iyo wakiilka gaarka Mareykanka u qaabilsan Ukraine Keith Kellogg. dhinaca Ukraine waxaa kulankan ka soo qayb galay madaxa shaqaalaha xafiiska madaxtooyada Andriy Yermak, wasiirka gaashaandhigga Rustam Umerov iyo wasiirka arrimaha dibadda Andriy Sybiga, sida laga soo xigtay ila ku dhow wasaaradda arrimaha dibadda ee dalka Turkiga. wasaaradda arrimaha dibadda ee Ruushka ayaa sheegtay inaysan meesha ka saarayn in wadahadalada Istanbul ay keeni karaan heshiis lagu soo afjaro dagaalka Ukraine. mas'uul ka tirsan wasaaradda arrimaha dibadda ee Ruushka ayaa u sheegay wakaaladda wararka ee TASS in ay jirto fursad lagu haran karo xal colaadda laga gaaro, balse wuxuu sheegay in Kiev ay tahay marka hore inay qaado wadada nabadda si waafaqsan doonitaanka Ruushka. madaxweynaha Ukraine Volodymyr Zelensky ayaa maanta ka laabtay dalka Turkiga isagoo u yimid ka qaybgalka kulan toos ah oo la yeesho madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin, laakiin waxaa la sheegay in uusan ka qayb galin wadahadalada imika socda, isagoo muujinaya inuusan raalli ka ahayn diidmada dhigiisa Ruushka Vladimir Putin oo ka baaqday wadahadaladan Turkigu ay garwadeenka ka yihiin. wasaaradda arrimaha dibadda Ruushka ayaa beenisay dhaleecaynta sheegaysa in Moscow ay u dirtay wafdi hoose wadahadalada. reer galbeedku waxay u arkaan ninka Ruushka wadaxaajoodkan u qaabilsan Vladimir Medinski inuu yahay siyaasi aan saameyn badan lahayn, kaasi oo sidoo kale ka qayb qaatay wadahadaladii aan natiijada dhalin ee 2022 bilowday waxa yar kadib markii dagaalku uu qarxay. Zelensky wuxuu diray koox ka kooban 12 xubnood oo uu hogaaminayo wasiirka gaashaandhigga Rustam Umerov. dhammaan xubnaha kale ee wadahadalka ka qayb galaya waa ku-xigeenno ka tirsan sirdoonka, saraakiil sarsare oo military iyo la taliyaha madaxa xafiiska madaxtooyada. waa tahay wixii ku soo kordha wadahadaladaasi waynu arki doonaa, iyadoo intaynu barnaamijkan soo gelin daqiiqada ka hor la sheegay in imika wadahadalo toos ay leeyihiin wafuudda ka kala socota Ukraine iyo Ruushka. xagga Mareykanka markan aynu eegno, war weyn ayaa soo baxay saacadihii la soo dhaafay oo waxaa lagu dhagan yahay madaxii hore ee laanta dib-u-baarista waddanka Mareykanka FBI oo la sheegay inuu ku baaqay dilka madaxweynaha Mareykanka Donald Trump. haddaba aynu eegno wararkii ugu dambeeyay ee amuurahan laga qoray. agaasimihii hore ee hay'adda FBI James Comey ayaa waxaa lagu eedeeyey inuu ku baaqay dilka madaxweyne Donald Trump kadib markii Khamiistii baraha bulshada uu soo dhigay fariin sir ah oo dad badan ay u fasireen si ka duwan sida isagoo ku doodayo. waxaa la sheegay in haatan la wado baaritaan la xiriira madaxii hore ee FBI-da, kaas oo sida halkan kaga muuqata soo dhigay lambarka 8647. James Comey ayaa waxaa la sheegay in
sawirkan uu soo dhigay halkan kaga muuqda barta Instagram-ka waxaana ka muuqda aleesha badda oo loo qaabeeyay 86 iyo laba lambar oo kale oo 47 haddaba maxay tahay sababta arrintan dadka arrimaha sirdoonka iyo arrimaha ciidamada yaqaan ayaa waxay ku fasirayaan in lambarka 86 inta badan loo adeegsado in wax la tirtiro ama qof la takooro ama in meesha laga saaro qofkaas lambarka 47 wuxuu u taagan yahay baa leeyahay madaxweynaha Mareykanka Donald Trump bacdama uu yahay madaxweynihii 47 bacdama marka loo doortay madaxweynaha Mareykanka marka wuxuu noqonayaa madaxweynihii 47 waxa la yiri marka lambarkan 86 oo ah in waxaas la tirtiro ama meesha laga saaro ama la faquuqo ama la takooro iyo lambarka 47 ayaa waxa loo fasirtay ereya sir ah oo muujinaya in agaasimihi hore FBI-da James Comey uu ku baaqayo dilka madaxweyne Donald Trump arrintaas ayaa waxa la sheegay in uu si degdeg ah baraha bulshada uga saaray sawirkaasi madaxii hore ee laanta FBI-da waxaana uu soo dhigay war kale oo ku faahfaahinayo in arrintaasi ay tahay arrin si qaldan loo fasiray wuxuu yiri anigoo xeebta lugeynaya ayaan waxaan arkay aleeshan lambarada laga sameeyay kadibna sawir baan ka qaaday oo baraha bulshada ayaan soo galiyay laakiin hadalkaasi uu isku difaacayo intaasi kuma ekaan wiil uu dhalay madaxweynaha Mareykanka Donald Trump oo lagu magacaabo Donald Trump Jr. ayaa si kulul uga falceliyay hadalkaasi waxaana uu yiri waa kaas James Comey oo si caadi ugu baaqayo dilka aabahay kuwani waa dadka ay taageerayaan dimuqraadiyiinta iyo warbaahinta waa waali ayuu qoray arrintan ayaa waxay dhalisay dood adag waxaana la sheegayaa in durbaba xubnaha ka tirsan aqalka cad ee waddanka Mareykanku ay si aad ah u dhaliileen sawirkaasi uu soo bandhigay madaxii hore ee laanta FBI-da iyadoo la sheegaya haatan in la bilaabay baaritaan dambi oo arrintaasi la xiriira waayahay baaq baa la isugu jawaabaya meeshan waynu arki doonaa wixii ku soo kordha haddaba madaxweynaha Mareykanka Donald Trump oo 13 bishan socdaal ku tagay bariga dhexe ayaa goor dhaweyta waxa uu soo gabagabeeyay safarkiisii waxaana la sheegay inuu ka soo duulay dalka Istaga Imaaraadka Carabta isagoo sita boorsada ay uga buuxaan heshiisyo 3 trilyan in ka badan oo dollar ugu kacaya waxaa la sheegayaa garoonka diyaaradaha inuu ku sii sagootiyay madaxweynaha Imaaraadka Carabta Mohammed bin Zayed waxaana la sheegayaa in haatan toos oo ugu socdaalay waddanka Mareykanka xagga Gaza aynu eegno halkaasi oo xaalad qaracan naxadin iyo murugo ay ka jirto duqeyn ba'an ay Israa'iil wadaa waxaana la sheegayaa duqeyntan inay tahay tii ugu darneyd labadii maalmood ee la soo dhaafay 250 qof ayaa lagu soo waramayaa in lagu dilay Mareykanka Gaza 120 qof ayaa la laayahay raq iyo ruux meel ay galeen dadka waxa la arkaya muuqaalada la soo bandhigay baraha bulshada iyo telefishinada qaarkood ay soo bandhigayaan hilbo go'ay oo laga soo saarayo dhulka hoostiisa dadkii baa la baadi goobay haddaba aynu eegno warbixin telefishinka Al Jazeera oo ka qoray arrintan waxa la sheegayaa tan iyo saakay 75 qof in lagu dilay duqeymaha Israa'iil ka wada Mareykanka Gaza 64 kamid ah dadkaasi waqooyiga Gaza ayaa lagu dilay iyadoo Israa'iil ay wado duqeyn tii ugu darneyd sida la sheegayo agaasimaha cisbitaalada ku meel gaarka ee Gaza ayaa u sheegay Al Jazeera in 120 qof la laayahay kadib markii Israa'iil Mareykanka qasamaantay madaafiic cir iyo dhul ay ku garaacday duqeymaha cirka ayaa inta badan waxa lagu beegsaday guryo dad rayid ay degan yihiin oo ku yaal Baytalaahiya iyo xerada qaxootiga ee Jabaariya waa waqooyiga Mareykanka Gaza tan iyo waa bariga ilaa xilligan barnaamijka aynu wadano duqeyn isdaba joog ayaa ku socota sawirro gaar ah oo telefishinka Al Jazeera uu helay oo khaas ah ayaa waxay muujinayaan daqiiqadii ugu horeeyay ciidamada Israa'iil markii ay geysteen sida telefishinku uu sheegay xasuuq ka dhan ah dadka barakacay waxaana la sheegay dadkaasi in markii hore lagu qasbay in halkaas ay ka baxaan waxaana la sheegay Baytalaahi inay ka mid tahay meelaha duqeynta ugu ba'an ay ku socoto sawirradu waxay muujinayaan kooxaha gurmadka degdeg ah iyo gaadiidka ambalaska isku dayaya inay soo saaraan meydadka iyo inay badbaadiyaan dhaawacyada iyadoo ay jirto baahi weyn oo dhanka qalabka ah waxaa la sheegayaa in 250 imika dhimashada ay marayso labadii maalmood ugu dambeeyay iyadoo Israa'iil ay xoojisay duqeymaha dhanka Israa'iil inkastoo duqeyn culus ay wado haddana waxaa la sheegayaa dab xooggan imika inuu ka holcayo meel ku dhow magaalada Qudus ee la haysto wargeyska
wargeyska The Times of Israel ayaa waxa uu sheegayaa in 10 kooxood ama 10 cutub oo ka tirsan kooxaha dabdamisku inay la tacaalayaan dabkan oo la sheegay sidoo kale ay ka qayb qaadanayaan ugu yaraantii 4 diyaaradaha dabdamiska oo hawada sare biyo ka sayrinaya haweeney u hadashay adeega gurmadka degdega ayaa waxay sheegtay in dabku uu ku dhow yahay deegaanka la yiraahdo Ramad Eshkol oo ka tirsan magaalada Qudus ee la haysto wadada sagaalaad ee magaalada Qudus ayaa waxa la sheegayaa in dabku uu hakad geliyay isla markaasna wararku ay sheegayaan in gawaaridii ay xirantay waxa laga cabsi qabaa dabku inuu sii xoogaysto sababtuna waxay tahay baa la yiri dabaylo jira iyo qoraxda oo aad u kulul war sidoo kale intaynu barnaamijkan ku jirnay soo dhacay waxa uu sheegayaa laanta sirdoonka Shimbati Israel in ay sheegtay inay gacanta ku dhigtay qof la sheegay inuu la shaqeynayay Iran sida wargeyska iyo dacwada Arnold uu tabinayo qaabka uu la shaqeynayay iyo qofkan haybtiisa lama sheegin waa war hadda soo dhacay wixii ku soo kordha waynu arki doonaa American International High School iyo faraca Nairobi haddii aad ubadkaaga aqoon sare la jeclaatid halkaad aadi lahayd iyo kana waa American International High School ee ilmaha haatan u geyso oo aqoonta kamaal American International High School American International High School farciisa Nairobi waxa uu kugu bishaaraynayaa inuu ku hayo waxbarasho heer caalami ah oo aad qaadanayso shahaado la aqoonsan yahay isla markaana casharrada lagu bixinayo nidaamka waxbarashada Mareykanka haddii aad ka soo guurtay qurbaha ama aad la doonayso waxbarasho tayo wanaagsan carruurtaada American International High School waxa uu ku diyaariyay waxbarashada dugsiga sare waxa uu iskuulkan wada shaqayn la leeyahay hay'adaha waxbarashada Mareykanka iskuulku waxa uu ku yaalaa xaafadda Westland ee magaalada Nairobi wixii faahfaahin kala xiriir telefoonada iyo shashada kaaga muuqda Internet Plus waa adeeg ay macaamiishu ka heli karaan internet fiber ah oo xawaarihiisu yahay 20 megabytes per second ayna la socdaan rasiifar ay ku jiraan in ka badan 4,000 oo kanaal iyo 100 daqiiqado oo ah ku hadal bilaash ah